wuxuu yidhi nabigu salى الlahu عalيه wasalam nebiy llaahi ibraahim isagoo safar ku yimid dhulkan masar ee dhulkaa shaam ka soo safray ayaa dhulka masar waxaa xukumayay nin gaal ah oo aad u kibir badan oo aad u iskula qab weyn ayaa masar xilligaa ka telinaya ninkaa masar ka telinaya boqorka dabeecadiisu waxay ahayd qof walba ee magaalada soo gashay haweeney ah niman jawaasiis ah oo magaalada ku yaaciyey gabar qurxooni hadday magaalada soo gashaba anigaa iska lahu dhihi jiray nebiy llaahi ibraahim baa magaalada la soo galay gabadhan saara ee sida dayaxa u eg oo quruxda badan nimankii jawaasiistaa boqorka u soo sheegeen oo yidhaaheen gabar iyadoo kaleba weligeed aan la arkin ayaa magaalada soo gashay waa jaaniskan raadinaya soo qabta yidhi gabadha ila waddankaasaa ka talinayo gabadhana waxaa qaba nebiy llaahi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam xoogaa lagu waday gabadhii ninkii boqorka ahaa ee masar ka telinayay ayaa loo geeyey gabar mu'minada cafiifad ah zawjatu ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam xaaskii nebiy llaahi ibraahim khaliil الraxmaan ah ayuu xoog uu rabaa inuu ku qabto ninkaa shaydaanka boqortooyadiisaa loo dhexgeliyey gurigii uu ku jiray gabadhii way u jeeddaa tabarna ma hayso awooday isku difaacdo ma hayso albaab u furani ma jiro ilaa albaabka ilaahay mooye subxaanahu wa tacaala laba ragcay tukatay salaadii u istaagtay ilaahay barisay waxay tidhi allaahuma in kuntu aamantu bika wabirasuulik wa axsantu farjii ilaa calىa zawji falaa tusallid calaya hada alkaafir ilaahow haddaan adiga ku rumaysanahay rasuulkaaga nebiy llaahi ibraahimna aan rumaysanahay cawradaydana weligay aan zina aan ka ilaalin jiray ilaa zawjkayga maahane cid kaloo jirkayga taabatay aysan jirin oo gabar cafiifadoo sidaa u dhowrsan aan ahay ilaahow gaalkan haygu sallidi shaydaanka oo jirkayga yuusan taabanin gaalka gaalkii gacantu u soo taagay waa suuxay ducadiiyaa wadnaha uga dhacday habaarka iyo habaarta ayaa wadnaha uga dhacay sidii gantaalka waa suuxay fagudda xataa rakada birijlih uu yihi nabigu salى الlahu عalيه wasalam ilaa uu lugaha dhulka uga garaacay uu raftay waa raftay waa raftay naqaskiyaa ku dhegay markaasuu waxay tidhi ilaahu hadduu igu dhinto shaydaankan hadduu igu dhinto waxaa la leeyahay iyadaa dishay oo ciidankan iyo waxa maaragtaa ku hareeraysan balaayadan aniga iyo zawjkaygaba na dhibaatayna ilaahu ha igu dilin laakiin iga qabo ha igu dilin laakiin ilaahu iga qabo cabbaan markuu rafanayey uu soo naaxay markaasuu wuxuu yidhi maa adkhaltumuunii calaya ilaa shaydaana war shaydaanaad ii keenteene bini aadam iima keenine iga wada wirtan gacantaydaba waan saari waa iga wada waa shaydaan markii ii soo gashay wuxuu yidhi naqaskii a igu dhegayo waa raftayoo maskaxdii miirkiiba waa iga tegi waa shaydaan waxaad ii soo geliseen orda iga wada wa akhdamahaa haajara weliba gabadhaan yaysan igu soo laabane gabadhan addoontaana ha u shaqaydoo siiyu yidhi addoonna waa soo siiyey haajare la dhihi jiray way soo laabatay gabadhii nebiy llaahi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam ayuu u timid waxay tidhi ashacarta ana allaha kabata alkaafir wa akhdama waliida ma og tahay gaalkii ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu hoog iyo dulli ku riday gabadhaanna uu isoo siiyey addoontan haajare la yidhaah inuu isoo siiyey cifada dhowrsanaanta gabadha mu'minadda ah ee xaaskii nebiy llaahi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam ahayd ee ilaahay subxaanahu wa tacaala gaalkaas ilaahay uu ka xifdiyey waxay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku abaalmariyey gabadhii uu soo siiyey gaalku oo ka dhalatay dhowrsanaanteedii haajara inay noqotay jaddatu nebiy llaahi moxamed salى الlahu عalيه wasalam ayeeyada uu galo
نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه لأنه حوي قبضاس waxay dhashay Haajara Nabi Ismaaciil ayay dhashay gabadhaasi ninka boqorka uu soo siiyay Haajara la dhihi jiray nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu si toos u galaa Nabi Ismaaciil iyo Nabi Ibraahim iyo toos u galaa marka cifada iyo dhowrsanaanta iyo sharafta qofku ilaaliyo waa kayd adduunyo aakhiraba akoonkiisa ugu jira uu ku noolaanayo dunidan dusheeda aakhirana uu noqonayo rasiid uu ku badbaado uu noqonayo dhowrsanaantii waxaa ka dhashay nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam in gabadhii ay u noqoto ayeeyo ay u noqoto khayru khalqi illaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam fadlan walaal waxaan ka codsanaynaa muuqaalkan haddii aad ka heshay like saar fadlan walaal waxaan kaloo ka codsanaynaa haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir fadlan subscribe saar fadlan gambaleeltana furo si aad uga mid noqotid daawadayaasha ku xiran channelkan Kobi Cilmigaaga fadlan waxaan kaloo ka codsanaynaa haddii aad muuqaalkan ka heshay walaalahaaga kaleeto muslimiinta u sii gaarsiiyo u sii sheer garee aad iyo aad u mahadsan tahay